بسم الله الرحمن الرحيم جمعة ونعكسن وسيدي لباتنك بيشا نوفمبر سنة لبكن لباتن يشن أو كوبعجن تضبط بيشا جماد الآخر سنة كن أفر بقول فرتنية تضبط تاريخ الهجرية ده كسو دوادا مركله يبرامجكي ورارك ما أنت قضبضة برامجك عن إذن كوها إننا وحا كمدا warbaahinta Israa'iil ayaa shaaca ka qaaday daraasad cusub oo yaab leh taasi oo ku aadan in kumanyaal kun oo Israa'iiliyiin ahna dadkii cilmiga iyo aqoonta lahaa iyo khubradii arrimaha tiknoolajiyadda ay isaga hajirayaan Israa'iil sabab la xiriira xasilooni la'aanta dagaalada iyo hubanti la'aanta mustaqbalka arrintan oo ay qarinaysay xukuumadda Netanyahu ayaa laga bixiyay digniin ah in Israa'iil ku socoto in laga haajiro ayna culays ku noqon doonto dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo mustaqbalka jiilalka dambe warbixin iyo falaqayn arrimahan ku aadan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqaynta wararka kalena waxaa ka mid ah ugu yaraan 40 qof oo isugu jira ciidamo Israa'iiliyiin ah shacab iyo dagaalamayaal Suuriya ah oo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray isku horimaad ka dhacay magaalo ku taal miyiga caasimadda Dimashq ciidanka Israa'iil oo weeraray magaaladaasi ayaa si dirqiya waxa u soo badbaadiyay diyaaradaha dagaalka waxayna ka soo carareen gaadiid dagaal kadib dagaal gacmaha la isula tagay oo socday saacado militariga Israa'iil oo ku andacoonaya in ay dileen qaar ka mid ah dagaalamayaashii Xamaas ee ku go'doonsanaa godka dhulka hoostiisa ee ku yaal Rafah Isbayn oo ku hanjabtay cunaqabateyn cusub inay saarayso Israa'iil ciidanka Israa'iil oo hawlgallo ballaaran ka wada magaalooyinka daanta galbeed ee la haysto hay'adda Amnesty International oo ku baaqday joojinta rabshadaha Israa'iil ee ka wado daanta galbeed wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Belgium oo ku baaqay isaguna tilaabo adag oo lagu joojinayo rabshadaha ay wadaan Yahuudayna ku bilaabayna isku horimaad culus oo ka dhacay gudaha waddanka Syria halkaasi oo ciidanka Israa'iil weerar ay ku qaadeen waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada Israa'iil ugu dambeyn lagu qasbay halkaasi inay ka soo cararaan welibana gaadiid dagaal laga gubay ayna ka soo carareen haddaba wararkii ugu dambeeyay ugu yaraan 13 qof oo Suuriyan ah ayaa la dilay weerar Israa'iil ka geysatay magaalada Beit Jin ee miyiga Dimashq dadkaasi waxaa ka mid ah carruur iyo haween warka ayaa intaasi ku daraya in weerarkan sidoo kale uu sababay dhaawaca dad kale oo tiradooda si rasmi ah aan loo xaqiijin kuwaasi oo lagu soo waramayo in dhimasho dhaawac ay ka soo gaareen duqayn madaafiic gantaalo oo Israa'iil ay la beegsatay magaalada Beit Jin oo qiyaastii 10 kiiloomitir u jirta xadka buuraleyda Golan ee Israa'iil ka haysata Suuriya wakaaladda wararka dalka Suuriya u faafisa wararka ee magaceeda loo soo gaabiyo Sana ayaa sheegtay in meydadka 6 qof oo 5 kamid ah isku qoys yihiin la geeyay cisbitaalka Al-Muwassat ee magaalada Dimashq iyadoo la sheegay in 11 dhaawac ah loo qaaday isla cisbitaalkaasi halka 3 kale oo dhaawacana loo wareejiyay cisbitaalka Qatna warbixinta ayaa sheegaysa in ciidamada Israa'iil ay isku dayeen inay qabtaan mid ka mid ah dadka deegaanka taasoo keentay iska horimaad hubaysan oo socday muddo 2 saacadood ah wargeyska iyo dhaco taxranood ee Israa'iil ka soo baxa ayaa daabacay in askar Israa'iiliin ah oo magaalada gudaha u galay la hareereeyay halka warbaahinta Israa'iil ay sheegtay in madaafiic iyo diyaaradaha droniska loo adeegsaday in lagu soo badbaadiyo ciidamada oo go'doon galay taliska ciidamada Israa'iil ayaa ku andacooday in 6 askari looga dhaawacay iska horimaadka ka dhacay magaalada iyadoo 3 ka mid ah dhaawacooda uu culus yahay laakiin warar ay baahisay warbaahinta Israa'iil ayaa tirada askarta dhaawaca ka dhigaysa 13 wargeyska Walla ee ka soo baxay Israa'iil ayaa dhankiisa daabacay in askartii gashay magaalada ay ka soo carareen gaari military oo waxyeello ay soo gaartay iyadoo markii dambe diyaaradaha dagaalku ay burburiyeen gaarigaasi waxaa jira dhaleecayn xoogan oo ku saabsan qaabka diyaar garowga ciidanka weerarka qaaday oo loo dhigay dabin isla markaasina muddo dheer uu socday hawlgalka lagu soo badbaadinayay oo ay ka qayb qaateen dayuuradaha dagaalka
telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegaya in qorshayntu ay socotay waa weerarka toddobaadyo balse diyaaraduhu aanay soo faragelin karin iska horimaadka sababo la xiriira isu soo dhawaanshaha askarta iyo dagaalamayaasha Suuriyaanka oo foodo isku hayay raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa sheegaya in howlgalka Beit Jim la diyaarinayay muddo bil ah iyadoo lagu eedeeyay deegaanka inuu leeyahay goobo kaabayaal ah oo ay ku sugan yihiin wax Israa'iil ugu yeertay argagixiso ciidanku waxa uu sheegay in cutub ka tirsan askarta kaydka qaybta 210aad ay u baxeen inay soo qabtaan xubno ka tirsan waa si hadalka loo dhigay kooxda islaamiga ah ee Beit Jim warbaahinta Israa'iil ayaa sheegaysa in howlgalku ku wajahna qabashada laba walaal ah oo la sheegay in miinooyin ay dhigayeen oo gantaal ay ridayeen inkastoo aysan jirin cid madax banaan oo xaqiijin karta sheegashada dhanka Israa'iil ciidanku wuxuu ku andacooday in dadka la tuhunsan yahay ay ka shaqeynayeen qorshayaal weerar ah isla markaasna ay ku jawaabeen markii lagu furay rasaas ayna direen duulimaadyo taageera oo ciidamada caawiya militariga Israa'iil ayaa sidoo kale ku andacoonaya in dhammaan dadkii la doonayay in la qabto iyo in kale oo kamid ah dagaalamayaasha la dilay halka warbaahinta Israa'iil ay sheegayso in 3 Suuriyaan ah la qabtay walow dhanka Suuriya aan laga xaqiijin warkan militariga Israa'iil saraakiil ka tirsan ayaa ku tilmaamay howlgalka mid aan caadi ahayn maadaama qasaaraha ciidanka uu sareeyo ciidanka ayaa ku dhawaaqay in ay soo gabagabeeyeen howlgalkii Suuriya taniyo burburkii xukunka Bashar al-Assad ee dalka Syria Israa'iil waxay weerar ku waday dalkaasi iyadoo beegsatay goobo muhiim ah oo ku yaal gudaha Suuriya sida baqarada hubka saldhigyo ciidan xarumo istiraatiijiya iyo magaalooyin iyo waliba tuulooyin war hadda soo dhacay intii barnaamijka ku jirnay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Syria ayaa si kulul u cambaaraysay weerarka iyadoo bayaankeeda ku sheegtay in jamhuuriyadda carabta Syria si adag ay u cambaaraynayso dambiga ay geysteen cutub ka tirsan ciidanka gumaysiga sida bayaanka lagu yiri ee Israa'iil oo soo galay dhulka degmada Beit Jim ee duleedka magaalada Dimashq waxaana bayaanku ku tilmaamay weerarkaasi gardarro cad oo Israa'iil ay ku hayso shicibka iyo hantidooda taasi oo keentay dagaal toos ah oo qarxa oo ku qasbay cutubkii weerarka soo qaaday in ay dib u gortaan haddaba bayaanka ka soo baxay Syria wuxuu muujinayaa warka ku aadan in ciidanka Israa'iil goobta ay ka carareen dad badan waxay leeyihiin nimankan ka dagaalamaya waddanka Syria waa niman dagaal u jooga muddo dhowr iyo 10 sano ahna ciidankii Bashar al-Assad xisbiga weena ee Ba'ath oo Iran ay taageereysay oo Hizbullah ay taageereysay oo Ruushka u taageerayay la dagaalamayay ciidanka Israa'iil waxay ku baxsadeen farcidiya leh in la qabqabtay ku sigteen sida warbixinta ay sheegayso marka laga tago warbaahinta Israa'iil wasaaradda arrimaha dibadda ee Syria ayaa xaqiijinaysa in ciidanka Israa'iil dib ay u gorteen arrinta marka waxay noqon kartaa tilaabo Israa'iil si weyn saameyn ugu yeelan doonta howlgallada ay ka fulinayso gudaha waddanka Syria waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo toddobaadkii hore maalintii Arbacada Netanyahu uu tagay buuraleyda Golan gaar ahaan dhulalka Syria laga qabsaday 8 December ee sanadkii hore wixii ka dambeeyay waxaana la arkayay Netanyahu oo ku labisay dharka tuutaha oo booqanaya halkaasi waxaana la aaminsan yahay qorshahan inuu ahaa qorshe halkaas uu u tagay weerarkaasi laakiin Israa'iil ugu dambeyntii baqacar ayay kala soo kulantay weerarkaasi baraha bulshadana waxaa haysata arrintan oo si weyn loo hadalhayo wixii ku soo korna arrimahani waa inuu arki doonaa bal markan aynu eegno xaggaasi iyo dagaalka waddanka Ukraine ayaa si cad u diiday baaqiyo ku saabsan in dhul ay uga tanaasusho Ruushka si loo gaaro heshiis nabadeed Andriy Yermak madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ahna madaxa ugu sareeya ergada wadaxaajoodka ayaa farta ku fiiqay in madaxweyne Zelensky uusan marnaba aqbali doonin heshiis kasta oo dhul lagu bixinayo isagoo ku tilmaamay arrintaasi mid ka hor imaanaysa dastuurka dalka Yermak ayaa sheegay in wadahadallada hadda laga hadli kara ay ku kooban yihiin oo kaliya qeexidda xariiqda iska horimaadka wuxuuna ku tilmaamay soo jeedinta in wadahadalladii Abu Dhabi lagu gaaray aysan ahayn kuwa khilaafsan danaha Ukraine isla markaasna ay dhowrayaan xuquuqda casaanka ah ee aan laga gudbi karin oo ula jeedo in dhul aysan ku bedelaynin nabad geesta kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin
ayaa isagoo ka hadlayay magaalada Bishkek waxa uu ka sheegay in Moscow dagaalka ay ku joojin karto oo kaliya haddii Ukraine ka baxdo dhammaan dhulka ay ka joogto gobolka Donbas oo ka kooban Luhansk iyo Donetsk isagoo ku hanjabay haddii ay diiday Ukraine Ruushku inuu ku fulin doono ujeedooyinkiisa awood ciidan xilli dadaalada dhanka diblomaasiyaddu ay socdaan ra'iisul wasaaraha waddanka Belgium Bart de Wever ayaa uga digay midowga Yurub in qorshaha lagu isticmaalayo 140 bilyan oo euro oo ah hantida dawladda Ruushka ee la xayiray oo dhaawici karo fursadaha nabadda Brussels ayaa hadda diyaarinaysa hindise qaanuun oo cusub si loo xalliyo tabashooyinka ay qabto gaar ahaan arrimaha la xiriira hantida laga xayiray Ruushka waa tahay xagga Mareykanka aynu eegno war culus oo madaxweynaha Mareykanka goordhaweyta uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu si rasmi ah u joojin doono socdaalka ama dadka ka imaanaya dalalka loogu yeero dunida saddexaad ilaa nidaamka Mareykanka si buuxda uga soo kabanayo arrimaha socdaalka qoraal uu ku daabacay baraha bulshada wuxuu kaloo ku ballan qaaday in uu dhammayn doono dhammaan taageerada heerka federaal ee la siiyo dadka aan muwaadiniinta ahayn isla markaasna uu ka xayoobin doono jinsiyadda waxa ugu yeeray muhaajiriinta halista ku ah amniga gudaha ee Mareykanka waxa uu kale uu sheegay in dalka uu ka tarxiili doono cid kasta oo loo arko culays qatar ama inaysan ku habboonayn waa sida dalka loo dhigay ilbaxnimada reer galbeedka Trump wuxuu ku hanjabay in uu baabi'in doono oo meesha uu ka saari doono malaayiin codsi oo soo galooti ah oo la bixiyay intii xilka uu hayay Joe Biden isagoo sheegaya in sidoo kale uu tarxiili doono waxa uu ku tilmaamay cid aan qiimeyn dhab ah u lahayn Mareykanka hadaladiisan ayaa waxa ay ka dambeeyeen toogashadii askar ka tirsan ciidanka ilaalada qaranka oo ka dhacday agagaarka aqalka cad ee looga arrimayo dalka Mareykanka iyadoo eedeysanaha lagu sheegay in uu u dhashay waddanka Afghanistan horeyna uu la shaqayn jiray CIA-da Mareykanka Trump sidoo kale wuxuu joojiyay nidaamka codsiyada socotada ka imaanaysa Afghanistan isagoo amray in dib u eegis lagu sameeyo dadka ka yimid 19 dal oo ugu yeeray kuwa walaaca leh oo ay ka mid yihiin Afghanistan, Iran, Libya iyo Yemen oo ka dhigo wehelkaaga wararka hagaag xagga qasa haddii aynu ka hormarno warar culus oo xasaasi ayaa soo baxay xilligan oo barnaamijka aynu wadno duqeyn ayay Israa'iil ka wadaa Rafah iyo Khan Yunis gorsii horeysay ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen wasadalka u dhigeen ilaa iyo sodomeeya ka tirsan dagaalamayaashii Hamas ee ku sugnaa gudad dhulka hoostiisa oo ku yaala Rafah gaar ahaan aagga jaalaha ciidanka Israa'iil ku sugan yihiin waxay kaloo sheegeen in halkaasi ay ka heleen meydadka 9 dagaalamayaal ka tirsan Hamas oo horey ciidanka Israa'iil ay u dileen warkan ma jiro cid madax banaan oo xaqiijin karta Hamasna kama aysan hadlin arrimaha dhanka diblomaasiyadda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Spain Jose Manuel Alpares ayaa sheegay in Madrid diyaar u tahay cunaqabatayn cusub oo ka dhan ah Israa'iil isagoo ku tilmaamay xadgudubada joogtada ah ee xabajoojinta Gaza iyo duqeymaha Lubnaan kuwa aan la aqbali karin Alpares waxa uu ka digay in xaaladda dib loo qiimeyn doono haddii aan la arkin tilaabooyin cad oo lagu dejinayo gobolka isagoo muujiyay walaac xooggan oo ku saabsan dilalka joogtada ah masiibada bini'aadantinimo ee Gaza iyo rabshadaha sii kordhaya ee daanta galbeed wuxuu xusay in midowga Mediterranean-ka ay ku mideyn karaan codka Carabta iyo Yurub si loo horumariyo xalka laba dowladood oo dhismaha dowlad Falastiiniya iyo dowlad Israa'iiliya waa hagaag bal xagga daanta galbeed aynu eegno halkaasi oo Israa'iil ka wado hawlgalo balaaran ciidanka Israa'iil ayaa saakay hiirtii waabari weerar xooggan waxay ku ekeeyeen xerada qaxootiga ee Al-Faraac ee degmada Tuubas ee waqooyiga daanta galbeed iyagoo la sheegayo in ay halkaasi ka fulinayeen hawlgallo muddo 3 maalmood ah ayaa hawlgalladani ay marayaan goobjoogayaal ay soo xeegatay wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa sheegaya in cutubyo waaweyn oo ciidanka Israa'iil ay gudaha u galeen xeeradaasi ciidanku wuxuu sameeyay baaritaan adag waxaana la sheegay in dhaqdhaqaaqyada dadka si weyn loo xadiday Kamal Beni Odeh madaxa naadiga maxaabiista ee Tuubas ayaa sheegay in 162 Falastiiniina 2 maalmood gudahood ciidanka Israa'iil ay qabteen oo ay xireen dhinaca kale ciidanka Israa'iil ayaa isaga baxay magaalada Taamuun aroortii saaka kadib 2 maalmood oo halkaasi hawlgal ay ka wadeen isla arrimaha daanta galbeed wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Belgium Maxime Prevot
ayaa sheegay in rabshadaha ay halkaasi ka wadaan yuhuudda deegaameynta looga sameeyey ee ay ku beegsanayaan shicibka Falastiin ee daanta galbeed ay gaareen heerkii ugu sarreeyay 20 sano gudahood. wasiirku waxa uu sheegay in Brussels ay tahay inay si adag u cambaareynayso rabshadahan isagoo xusay in dawladdiisa ay ka go'an tahay fulinta tillaabooyin ay horay u ansixisay. wuxuu ku adkaystay in rabshadaha la joojiyo baaritaan buuxdana lagu sameeyo si tallaabo looga qaado cid kasta oo ku lug leh arrimahaasi. hay'adda Amnesty International ayaa iyaduna walaac ka muujisay howlgallada military ee ballaaran ee ciidanka Israa'iil ay ka wadaan waqooyiga daanta galbeed ee la haysto. hay'addu waxay sheegtay in howlgalladan qayb ka yihiin nidaamka adeegsiga xoogga iyo takoorka ee Israa'iil ku wajahayso shacabka Falastiin, taasi oo keeni doonta cawaaqib halis ah. waxaana ay hay'addu sheegtay in loo baahan yahay in beesha caalamku si degdeg ah u joojiso kororka fararka military ee Israa'iil ka wado daanta galbeed ee dhulka Falastiin ee la haysto. war isna sidoo kale hadda soo dhacay hay'adda xafiiska u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa si adag u cambaareeyay tilaabo ciidanka Israa'iil ku dileen 2 dhalinyaro ah oo Falastiiniin ah oo aan hubaysnayn howlgal ay ka fulinayeen daanta galbeed ee la haysto. waxaana la sheegay weerarka dilkan 2 nin ee Falastiiniyiinta loo geystay ee Janiin ka dhacay in uu yahay dil ka baxsan qaanuunka oo xukun aan ku imaan, sida uu yiri Jeremy Lawrence oo ka tirsan xafiiskaasi oo gordhawta saxaafadda kula hadlay magaalada Geneva. وهاجا warkaasi iyo wixii ku soo kordha waynu arki doonaa. haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falaqaynta oo aynu aalaba idinkugu soo gudbino macluumaadka iyo wararka warbaahinta iyo saxaafaddu ay soo bandhigto iyo sidoo kale qobrada arrimaha militariga, arrimaha diblomaasiyadda, ciidanka sirdoonka iyo waliba arrimaha kale ee caalamiga. xubintan maanta waxaynu ku eegaynaa war weyn oo ka soo baxay warbaahinta Israa'iil ayaa waxaa lagu sheegay in kumanyaal kun oo Israa'iiliyiin ay ka hajirayaan Israa'iil sababo la xiriira xasilooni darrada, mustaqbalka oo aan la hubin iyo xaaladda Israa'iil oo sii adkaanaysa. dadkan waxaa ka mid ah dadkii ehelka u ahaa arrimaha adeegyada bulshada, dhaqaatiirtii, aqoon-yahanadii, injineeradii. warbixin amurahan ku aadan waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya wariyahayaga Cabdi Fataax Mawlid Xaaji Cabdi. daraasad cusub oo ay sameeyeen 3 cilmi baarayaal sare oo ka tirsan jaamacadda Tel Aviv oo kala ah Professor Itai Atar, Professor Nitai Bargman iyo Doron Zamir ayaa muujisay in ku dhawaad 90,000 Israa'iiliyiin ah ay ka tageen Israa'iil intii u dhaxaysay January 2023 ilaa September 2024, kuwaasi oo ay ka mid yihiin 50,000 oo ka baxay Israa'iil sanadkii 2023 iyo 40,000 oo hajiray ilaa September 2024 kadib sanado xasiloonidii ay liidatay kuna saabsan isu dheelitirnaanta socdaalka. sida uu sheegay wargeyska Calcalist, cilmi baarayaashu waxay u arkaan tiradan inay yihiin kaleexashada heerkii isu dheelitirka maadaama mowjadda cusub ee socdaalku noqday arrin weyn oo lagu garto in ay baxayaan tiro badan oo ka mid ah dadka dakhligoodu sareeyo, dhalinyaro iyo khubaro muhiim u ahaa adeegyada bulshada sida dhaqaatiirta, injineerada iyo shaqaalaha sayniska iyo teknolojiyada. natiijada ugu daran sida uu qoray wargeysku waa in khasnada xukuumadda ay khasaartay 1.5 bilyan shekel, waa lacagta Israa'iil oo dhigata ku dhawaad 395 milyan oo dollar oo ah dakhliga canshuurta muddada hore loo xusay, taasoo noqon lahayd dakhli soo laaban lahaa sanad kasta haddii dadkaasi Israa'iil sii joogi lahaayeen. isbedel ba'an oo ku yimid qaab dhismeedka dadka ka baxaya. wargeyska Calcalist wuxuu xusay in cilmi baaristu adeegsatay hab cusub oo kala soocaya dadka dhab ahaan u guuray iyo kuwa u baxay safarada ku meel gaarka ah si loo beeneeyo sheegashooyinka xukuumadda oo hoos u dhigaysay arrintan iyadoo ku eedeynaysay muhaajiriinta ka yimid jamhuuriyadihii hore ee midoogii Sovieti oo Israa'iil u isticmaala goob kala guur. wargeysku wuxuu sheegay in tirada dadka dakhliga sare soo galay oo ka mid ah kuwa haajiray ay kor u kacday laga bilaabo rubuc ilaa in ka badan 3 meelood meel, taas oo muujinaysa in Israa'iil ay luminayso qayb muhiim ah oo ka mid ah dadkii shaqayn lahaa, kuwaasi oo ay ka mid yihiin injineero, khubarada teknolojiyada sare ama waxa loo yaqaan high tech, shaqaale iskood u shaqaysta ee aan dawlad iyo shirkad u shaqayn, maamulayaal ka tirsan qaybaha dhaqaalaha ee ugu sareeya. warbixintu waxay intaas ku dartay in khasaaruhu uusan ku koobnayn canshuurta dakhliga oo keliya, taasoo dhaaftay 1.5 bilyan shekel, balse ay jiraan khasaarooyin kale oo aan lagu darin sida canshuurta iibka, canshuurta shirkadaha iyo tabruucaadka kale ee ay bixiyaan dadka baxay.
875 dhakhtar oo baxay. wargeyska Calculist wuxuu ku tilmaamay tirada dhakhaatiirta mid si gaar ah u walaac badan, iyadoo 875 dhakhtar oo Israa'iiliin ah ay ka tageen Israa'iil tan iyo January 2023. wargeysku wuxuu aaminsan yahay in tiradan ay tahay dhirbaaxo laba jibaar ah oo ku dhacday nidaamka caafimaad oo durba la daala dhacaya sababo la xiriira shaqaale la'aan, maadaama dhakhaatiirta baxaya ay ahaayeen lafdhabarta nidaamka. wuxuu wargeysku xusay in socdaalka ballaaran ee dhakhaatiirta khibradda leh uu khatar toos ah ku yahay nidaamka caafimaadka. 19,000 oo aqoon-yahano iyo injineero ah. wargeyska Calculist wuxuu soo xigtay cilmi baarayaasha in Israa'iil ay luminayso nuxurka raasamaalka aadanaha ee ugu qiimaha badan. waxaa ka mid ah dadka haajiray 19,000 oo haysta shahaado jaamacadeed, 6,600 oo ah xirfadlayaal saynis iyo injineero, 633 oo haysta PhD, iyo 224 cilmi baare. wargeysku wuxuu ka digay in tiradan ay caddeynayaan burburka saldhigga hal-abuurka Israa'iil, isla markaana bixitaanka injineerada iyo shaqaalaha tiknoolajiyada uu khatar geliyey faa'iidada tartanka dhaqaalaha oo dhan. in ka badan 75% dadka baxaya da'doodu waxay ka yar tahay 40 sano, balse waxa ugu khatarta badan waa isbeddelka cusub oo ah in tirada dadka ka weyn 40 ay kordhayaan, taasoo cilmi baarayaashu ku tilmaameen beddel qaab dhismeed oo keeni kara in la waayo aragnimo aan la beddeli karin. khatarta ugu weyn weli waa tan imaanaysa. gabagabadii wargeyska Calculist wuxuu ku digay in khatartu aysan degdeg u muuqan, balse ay tahay halis istiraatiiji ah oo aad u weyn. Israa'iil waxay ku tiirsan tahay raasamaal aadanaha oo ka kooban qaybaha ugu muhiimsan bulshada, mana aha in socdaal ballaaran dhaco si nidaamyadu u burburaan. difaaca ayaa daciifi kara keliya haddii tiro kooban oo dhakhaatiir, injineero iyo saynisyahano ah ay baxaan. cilmi baarayaashu waxay ka digeen in la gaari karo meel aan laga noqon karin oo dhaawaca qaab dhismeedka dhaqaalaha uu noqdo mid aan la hagaajin karin, taasoo horseedi karta hoos u dhac joogto ah oo ku yimaada wax soo saarka iyo hal-abuurnimada Israa'iil. Cabdifataax Muriid Xaji Cabdi, HBN Online TV. وهجاج عبد الفتاح آد بو محسن يحي انت ايان كسو gabagabeenaya barnaamijkii wararka maanta waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horeyba aadan